kelimadeena gaaban waxay ku saabsan tahay waxa la yiraahdo al-ghafla al-ghafla waa qofku inuu dhoohan yahay moog yahay maqan yahay aakhiro xuska ilaahay inuu qofka ka maqanta ilaahay xuskiisa xusuusta aakhiro xusuusta geerida iyo dhimashada la isxisaabinayo la ismiisaamayo waa wax la rabo qofku mar walba maskaxda inuu ku hayo haddii qofka maskaxdiisa ay buuxiso waxa ka hor muuqdo adduunyada wuxuu noqonayaa wasfigaas wasfigii iyo tilmaantii ilaahay uu ku tilmaamay gaalada إلهي وحي قال هذا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وحي قرنيان دلدلال كظاهر كائن موضع نرشأ الدنيا ده. وهم عن الآخرة هم غافلون آخرنا وموجيهين وحي إلهي كنت المامئين آخر موج قفكو هدو سداس أو نقضه wuxuu hayaa wada khatar oo ilaahay subhanahu wa ta'ala una raali ka ahay ilaahay subhanahu wa ta'ala fir'aun markii uu halaagay badankiisa banaanka lagu soo tuuray waxa ilaahay ku khatimay aayadaas wa inna kathiran min an-nas an ayatina laghafilun in badan oo dadka kamid آياتهن وموجهن وكدوهن غفل وحال إلى غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره قفك الشيء إنه كم من قنية هي مسك حديثة وأونا حسوسا قرآنك وحال لقيا وإنتاس أو معلومات أو كصوم مرتي مصحف قرآن إلى نفرين ما بعد حسوسا بابا صلاة بدن إيا خير بدن أو لقاه ربي وبموقته ما آذن حسوسا غفلة داس آد كسوغان تهي هذا يجيريدو كوغو تمادو لغوغو قبطو على خطر باكو جرته إلهي وحيري اغترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون حساب تيبا أسو دواتي دتك قيامه إنو دعا دواتي حلقي الحسابين لها بسود دوادي وحين كسويهن غفلت وانا معرضون وكو حقك تشيستي قفكو هادو سدا او نقض على خطر ايو كسويه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى وأودقي إنه كوا كم النقض واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين أي النبي قال له صلى الله عليه وسلم هكم من نغن كوا دوهان أو موك إلهي حسوسي سي ذكري سي آخر واللوغتي آيات كلا إلهي وحو كل يا النبي ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا هأدعن أقف عن قلبي سبب موغيسيني حسكين أو هودي سرعي هذه إلهي حسكيسا يا آخر قلبي وموغاده وحتى هو الرع مد هودي سرعي أياته ميل حن أينا كاتوريس وحدعي كرتا غفلة لفتجد عقوبة من الله إنتا وقفك لقول عقابي مركي معاصي يا دنبي وكبط وطوات كان كي استغفارتي النقشدي إلهي اللي جواي حلقي يا عقوبة أين يكون نقط وكإلهي أرنا سبحانه وتعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون كوا غافلين تآه إلهي سبحانه وتعالى وحلي قلبي جودة يا إلهي الدبول مقل كودي بقى إلهي الدبول
aragoodii baa ilaahay xaqi ka dabool ayagaana ah kuwa gaafiliinta moog ayaga ah haddaadan wacdi dhegaysan haddaadan khayrka arkahayn oo indhaha saarahayn haddaadan waxa weeyaan aadan ahayn qof ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walba xasuusan waxaad noqonaysaa kuwa ilaahay qalbigooda u dabolo cuquuba min allah weeye ka digtoonow cuquubadaas ilaahay inay kugu dhacdo ku didaal dikriga iyo xuska ilaahay nebigu wuxuu yidhi calayhi الصalaaةu wasalaam layantahiyanna aqwaam can wadcihim اljumucaat aw layakhtimana allahu calىa quluubihim uma layakuununa min algaafiliin ha ka joogeen oo ha ka joogeen dad ka tegahaya jumcooyinka oo jumcadda maalinta jumcada aan tukanahayn ilaahay hadday ka tegi waayaan qalbigooda ayaa ilaahay khatimahaya ama qalbigooda ilaahay shaambadaynaya oo daboolaya markaasay waxay ka mid noqonayaan oo ku biirayaan kuwii gaafiliinta ahaa oo ilaahay moogaa subxaanahu wa tacaala aakhira moog bay noqonayaan gaflada asbaab ayay leedahay waxaa ka mid a asbaabta gaflada aad ku sugan tahay markaad dib u xasuusatid alinqiطaacu اlkaiir can ziyaarati اlqubuur tadakuri اlmowt wadaari اlaakhira ka go-id aad u dheer muddo dheer inaad ka go'did oo aad ka maqan tahay booqashada qubuurta geerida xasuusteeda daarta aakhiro oo la xasuusto hadday muddo dheer qalbigaaga ay ka maqnaato oo aad ka go'did waxay noqonaysaa asbaabta gaflada ayaa ku haysata xasuustii iyo qalbigii jilcahaya iyo khushuucii baa kugu yaraanaya walidaalika ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahay alhaakum الtakaaثur xataa zurtum اlmaqaabir maxaa laga wadaa wuxuu yidhi ibnu kaiir waxa weeyaan macnaha aayaddaani ashغalakum xub الdunya wanaciimuha wazahratuha can dalab اlaakhira waxaa idin mashquuliyey adduunyada jacaylkeeda iyo nimcadeeda iyo birbirkeeda aad raacaysaan arrinkaasi wuxuu idinka mashquuliyey aakhiro dalbiddii aad dalbayseen iyo dalabkii aakhiro ayuu idinka mashquul markaasaa arrinkaa ku sii socoteen xataa jaa'akum اlmowt ilaa geerida idinku timid wa zurtum اlmaqaabir oo qubuurtii aad booqoteen oo meydkiinna la qaadoo la geeyey wa sirtum min ahlihaa ahlu qubuurkiina aad ka mid noqoteen marka qofka waxaa diidahaya ugu horeeya oo mashquulinahaya oo aakhiro iyo dhimasho iyo qabriga ilowsiinahaya waa xubu اdunya wa naciimuha wa zahratuha adduunyada birbirkeeda iyo nimcadeeda iyo jacaylku u qabo ayaa waxay ilowsiinaysaa oo kuugu weyn daartii aakhira inay ku ilowsiiso geerida iyo dhimashada ayay ku ilowsiinaysaa markaasaa habeen iyo maalin waxaad ku fakaraysaa shilinkaa shilin ku dar gurigan guri labaad oo lala mataaneeyuu u baahan yahay dukaankan dukaan labaad u samee meel heblo farcad oon kaga furin shirkaddan horumar fiican ma gaaraysid meel heblo waxaa ka jirta fursado dhaqaale iyo laga soo saari kara ilo dhaqaaloo fiican intaas oo shir iyo intaas oo sahan ah iyo intaas oo mataqaanaa mashquul ah ayaa waxaa ugu jirtaa tartan adduunyada ah ayaad ugu jirtaa markaasaa waxaa laga yaabaa inay ku soo marto bil 2 bilood 3 bilood oo aadan dhimasho iyo geeri aadan midna xasuusan waa musiibo aad iyo aad u weyn badan wuxuu nebigu yidhi calayhi الصalaaةu wasalaam akiruu min dikri haadimi اladaat yacni اlmowt waxaa badisaan xasuusta midka macaanyaalka gooya macaanka midka jara waa mowdka dhimashada weeye qofku siduu u cunayo u cabaya haddii la yidhahdo waa dhimanaysaa markaasba waxaa laga yaabaa cunnada hortiisa taalla inuuna dhammaysan karinbaba haddii la yidhaahdo warqaddii waa la fiiriyo baaritaankaagii waxaa ka soo baxay inaad dhimanaysid maalmo kadib ama bila kabacdi ama dhowr sano kadib waxaa laga yaabaa cunnada hortiisa taalla oo diyaarsan uusan qaadan karin siduu u naxaayo asagu markuu keligiis iswaaniyo oo intuu meel fadhiisto uu xasuusto dhimashada uu dhimanahayo iyo meesha mugdigaahoo la dhigahayo iyo ka tegidda laga tegahayo
iyo xisaabta ku dalacmaysa markuu isxasuusiyo qalbigiisu waa jilcayaa adduunyadu waxay tahay macnaheedana wuu garanayaa macmacaankii badnaana wuu ka go'aya xadiidka kale nebigu wuxuu yidhi calayhi الصalaaةu wasalaam zuuru الqubuur fainaha tudakirukum الآakhirة qubuurta booqda oo qubuurta ziyaarta aakhiro ayay qubuurtu idin xasuusinaysaa waayo qofku markuu qabriga tago maahan inuu u taga keliya inuu maanta geeri qof xabaalayo haddaa xataa meyd aad raacdid waxaa isku daydaa inta meydka la xabaalayo oo dadku iska daba wareegayaan oo dadku iska sheekaysanayaan oo adduunyadii ay ka sheekaysanayaan meydkiina hor yaallo intaa gooni u baxdid keligaa adoo ah oo qubuurta aad booqatid oo fiirisay qabrigan hebel hebel halkan la dhigay intaas oo sano yaalla magaciisii la iloobay daarihiisii la dhaxlay ilmihiisii ay kala shaqo tageen meeshuu mari jiray iyo meeshuu ka shaacabi jiray iyo meeshuu fariisan jiray kulli laga iloobay maantana halkaa yaalla adiga keligaa waxaa isku daydaa inaad xasuusatid bal halkaas adiguna inaad ku dambaynaysid ku cibro qaado qofka mu'minka ah waxaa habboon inuu diyaargarow ku jiro arrimo waaweyn baa ka dambeeya waxaa ka dambeeya mowdkii iyo dhimashadii iyo sakaraatulmowt waxaa ka dambeeya qabrigii iyo mugdigiisii waxaa ka dambeeya soo bixinta la soo bixinahayo waxaa ka dambeeya siraadkii uu marahayo xisaabtii ilaahay